Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wanaagsan saaxiibada ku xiran Raymond Show. Barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay ninkii sawir gacmeedka ka sameeyay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ee reer Sweden. Ninka lagu magacaabo Lars Vilks ayaa waxa uu ku geeriyooday shil gaari kaasi oo la socday in gaari ay leeyihiin booliska oo ku dhacay baabuur weyn oo xamuul ahaa kadib markii ay marayeen magaalada Marged ee koonfurta Sweden. Baarayaasha ayaa waxay sheegeen in shilkan ay ku dhinteen 2 askari oo boolis ah oo ilaalo u ahaa ninkan. Vilks ayaa daadisu waxay ahayd 75 sano jir waxa uuna si joogto ah u ilaalinayay booliska kadib markii ay soo gaareen hanjabaadyo uga imaanayay muslimiinta kadib markii uu sameeyay sawir gacmeedka ayaa waxa la daabacay sanadka markuu ahaa 2007 kaasi oo muslimiinta dhammaan ay ka caroodeen. sawir gacmeedkaas oo ku sheegay inuu yahay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee. Sidoo kale tani ayaa waxay timid kadib markii farshaxanaysta kale u dhashay Denmark oo isla asna sawirkaas oo soo saaray kuwaas oo ku aflagaadeynaya nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee. Vilks ayaa waxaa si weyn u hadalhaya warbaahinta caalamka kadib markii 2007 uu sameeyay sawir gacmeedka kaasi oo muslimiinta oo dhan ay markaas ka caroodeen kuwaas oo dhigay banaanbaxyo iyo waxyaabaha ay uga soo horjeedaan ninkaasi. isagoo ra'iisul wasaare xilligaasi Fardinga oo la kulmay 22 safiiro ah kuwaas oo ka kala socda wadamada muslimiinta soo ka codsaday in xiisada ka dhalatay sawir gacmeedkaasi ninkaas oo sameeyay la dejiyo. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa si joogto ah u waardiyeynayay booliska Sweden. ugu yaraan waxaa waardiyo u ahayd oo garbihiisa soconayay 2 askari oo kuwaas oo hubaysan oo ilaalo u ahaa. 2007 ay ururka Al-Qaacida ee Ciraaq waxay madaxiisa dul dhigeen $100,000 cidii dishay ninkani. sanadkii 2015 Vilks waxa uu ka qayb galay dood looga hadlayay xorriyatul qowlka goobtaasi oo lagu weeraray hubka noocyadiisa kala duwan. waxaa la sheegay in bartilmaameedkiisu uu ahaa ninkaas aflagaadeeyay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee balse waxay galaafatay qof agaasima halkaasi ka ahaa. booliska Sweden ayaa sheegay in aysan jirin waxaan jamaacada cusub oo soo gaarayay kadib markii gaari uu la socday oo ku dhacay gaari weyn oo xamuul ahaa. darawalkii waday baabuurka xamuulka ahaa ayaa isbitaalka yaala halkaas oo ay su'aalo ku weydiinayaan booliska Sweden. qof goob jooga ah ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in baabuurka uu ku jiray Lars Vilks uu lumiyay kontaroolka isla markaana oo baabuurka si xamuulka ku dhacay. baabuurtii u soo gurmanaysay ninkani ayaa dhammaantood dab qabsaday